السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان idin salaamay dhamaan asxaabta ku xiran kanaalkeena ku soo dhawaada kanaalkeena maanta waxaan ka hadlaynaa chessboard sida uu u shaqeeyo chessboard waxaan soo gelin doonaa kanaalka cashiro isku xiga marka maanta cashirka koobaad waxaan uga hadlaynaa boorka maraba inuu muuqaalka dheeraado saas awgeed hadii hadalkayga aan boobsiyo oo muuqaalka uu kula yaraado kusoo celsho ka bacdi waad fahmi doontaa waana cashirkii koobaad oo aad ayuu u fududahay hadii aad si wanaagsan u dhageysatid cashirkayga hadii aad fiirisid meeshan waxa ku yaalo number 1 meesha u dambeysana waxa ku yaalo number 8 sidoo kale xarafna uu ku yaala oo waxa ku yaalo a intan waxa ku yaalo h h marka waa 8 xaraf oo waa a b c d e f g h waa 8 xaraf sidoo kale nambaradana waa 8 marka boorka wuxuu ka kooban yahay 64 taas oo waa 8 lagu dhuftay 8 64 square 64 god ayuu ka kooban yahay square kastana wuxuu leeyahay magac u gaar ah hadii aad fiirino marka xarfaha leenkan oo dhan waxa la dhigi doonaa a leenka ku xiga waa b kan ku xiga waa c kan ku xiga waa d kan ku xiga waa e f g h leenkaas oo dhan hadii aad aragto waa a balse magaca uu qaadan doono waxay ku xiran tahay numberka gooya hadii aad fiirisid C4 waxa noqon doono waa meesha ay iska jiraan C iyo number 4 C iyo number 4 halkaas ayaa waxay noo noqon doontaa C4 hadii aad rabtid D5 waxaad raacaysaa xarafka D number 5 na meesha iska jiraan fiiri marka number 5 iyo D meesha iska jiraan waa intee waa halkan kaasna waxaad ku magacaabi doontaa D5 dhammaan marka hadii aad u fiirsatid sidaas ayaa loo akhrin doonaa hadda godkan hadii aad fiirisid maxaad ku magacaabi leed horta waa godka E marka koobaad numberkana waa 7 marka waxaad leedahay E7 boorka waxaan filaa in aad fahmi doontaan hadii aadan fahmin fadlan ku soo cesho muuqaalka oo ku celsho si wanaagsan u dhageyso waad fahmi doontaa insha Allah marka dhammaan isku weeriskan waxay leeyihiin mid walba magac u gaar ah maanta cashirkeena halkaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.